kumanaan ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley ayaa saaka isugu soo baxay garoonka Timcad ee magaaladaasi sida ay gutaan salaada Ciid Odaxa waxaana kumanaanka shacabka reer Gabiley salaada Ciid kala soo qayb galay wasiirka wasaaradda warshadaha Shacay Maxamed Muuse maayarka magaaladaasi Maxamed Amiin Cumar Cabdi barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdullaahi waxaana halkaasi khudbado dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay sheekhu beledka magaalada Gabiley Sheekh Xasan Jaamac sidoo kale waxa iyaguna halkaasi dadka weynaha kala hadlay maamulka heer gobol iyo heer degme ee gobolkani Gabiley iyo wasiirka warshadaha Soomaaliland mudane Shacay Maxamed Muuse Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kaseera walhamdulillah kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ilahu al-awwalin wal akhirin وخالق الخلق أجمعين له الأسماء الحسنى وصفات العلى وقدرة الكبرى لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله خاصة في هذا الموقف العظيم gobolahaan iyo degmaahaanba runtii waxaynu ku ciidanaa nabadgelyo taama wax dhibo deegaankeena ka jirta ma jirto ilaahayna waxa ka rajaynaynaa inuu inoo sii siyaadiyo laba qodob oo kooban baan runtii ka hadli doonaa maamul ahaan aad baan runtii shacabweynaha reer Gabiley uga mahad celinaynaa arrintan uu sheekhu ka hadlayay arrimo kale oo wada banaynaad ogtiin inay degmada ka socoto dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay labada xaafadood ay hawshaasi ka socotay ka soo dhamaatay xaafadan aynu joogno ee Dhinmey iyo xaafadan iyo Gabiley shacabweynaha aad baan ugu mahad celinaynaa doorkii ay ka qaateen hawshaasi wada banaynta xaafada ay hadda ka bilaabantay wada jir iyo laag barakana waxa rajaynaynaa inay dadku sida ay xaafadaha horeba uga soo qayb qaateen ay ka qayb qaadan doonaan عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديسنا عافمات وحن ويديسنا عبادة صوبا وزيرك وسارة ورشدها قدوميها قولها ديغانكا حوياها دولة هوسة دمان ددوينها غير قبيلي نقوه ريان مدحيوينتو سرابدينتا عقاشا أقويهانكا وحقرتك علماء dhalinyarada haweenka waxa weeyaan waxaan ilaahay nooga barayaa inuu ciid qodobka labaad qodobka ugu horeeya ilaahay waxa weeye waxaanu habaliyadi ka sidnaa qiimo leh qaaya leh duca leh iyo baraka leh madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo dhinaca kale geesta kalena waxa iyadana maanta laga ciiday magaala ganacsiyeedka Wajaale waxaana dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi isugu soo baxeen Silaayo Stadium ee magaaladaasi waxaana halkaasi khudbado dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay sheekhyada magaaladaasi iyo gudoomiyaha magaalada Tog Wajaale Injineer Aadan Shiina Cilmi xogayaha fulinta magaaladaasi waxaana dhammaantood hambalyo u direen dadweynaha ku dhaqan magaalada Wajaale halka waxaan hambalyo iyo salaam ugu dirayaa dhammaan shacabka muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliland gudaha iyo dibadda waxaan markuu ugu horreeyay saxda ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka qaranka mudane Sayid iyo marwadiisa gudoomiyaha xisbiga kulmiyaha gudoomiyaha musharaxa madaxweynaha mudane Sabiix iyo dhammaan golaha qaranka guddida baarlamaanka golaha wasiirada dhammaantood waxaa ciid wanaagsan ciidda ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ilaahayna waxay nooga rajaynayaan ilaahay nabadda wada waxaan aad ugu hambaliyaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guusha uu ka soo horeeyay كمبني آدمين waxaa kaloon hambalyo u dirayaa gaar ahaan shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan shacbiga ku nool degmada Wajaale waxaa kaloon iyagana halkan hambalyo iyo bogaadin u marinaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo
marwadiisa qaranka Aamina Waris anigoo ah gudoomiyaha degmada Togwa Jaale Mr. Aadan Shiile waliid cali ibraahim ilka case warbaahinta caalamiga SBC magaalada Gabiley.